anigoo ah duubabka direed layna yiraahdo ugaas maxamed ugaas abshir xaashi waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxda sharafta leh ee shiraysa sidii ay doorashooyin nadiif ah oo wada ogol ah ee uga dhici lahayd Soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada waxaana hambalyadaas oo kale aan la wadaajinayaa madaxweynaha xilku ka dhamaaday oo ogolaaday in uu shirkani uu qabsoomo waxaan kaloo hambalyadaas aan ka reebeynin midowda musharaxiinta iyo musharaxiinta kale ee ka gacan ka geystay in uu shirkani qabsoomo hambalyadaas dabadeed runtii shirkani waxaa ilaahay u weydiinayaa inuu noqdo shirkii loo aayo oo si kama dambeysa ay uga soo baxdo dowlad caadil ah oo xaalka hadda aan ku sugannahay xaal ka fiican oo ka aaya tiroon oo Soomaali ay u aaydo inuu ilaahay ka soo saaro oo shir taariikhi ah oo la yiraahdo shirkii Soomaaliya dowlad nadiif ah ku heshay la yiraahdo oo systemkeedu ugu hagaago inuu ilaahay ka dhigo yaan ilaahay u weydiinayaa inta badan ee samaha jecelnahay inay sidaas oo kale ila qabanayaan rajeynayaa waxaana ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inuu bal shirkan u wada duceyno weliba u istikhaareyno in uu shirarkii hore oo kale inuu ilaahay ka dhigo intaa dabadeed hambalyadaas waxaan halkan si gooniya aan baaq ugu diray madaxda maamul goboleedyada oo uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland madaxweyne Axmed Madoobe runtii anigu waxaan aaminsanahay inaad madaxweyne nin oo dadaal badan oo maamul aqoon ah oo diin yaqaan oo yacni soo dadaalay oo Jubbaland runtii wax badan u qabtay laakiin wax badanna ay ka dhiman yihiin oo runtii adigoo xaq raadisa oo xaq durinimo sheeganaya oo haddana inaad markaas xaq darre aad ku kacdid wax laga fiican yahay guud ahaan maamulkan hadda ee Jubbaland runtii waan ku maamusho runtii wax badan ka tirsanayna jubbada hoose iyo jubbada dhexaba xataa deegaanadan hadda gadal saddexdaas gobol hadda uu maamulku uu ka kooban yahayba dee gobol inaan wax ka deganeyn malaha qaybta aad mar walba noo qoondeysidna qayb la qabata ma ahan marka taas ilaahay ha ku sonsiiyo in aad dadka aad maamusho inaad u xaq soorto isla markaasna anigoo ku dheeraaneyn hadda golahan runtii wasiirada ayaa magacawday kulley dadka ku xaqiranaanay waana kasoo horjeednaa runtii wixii laga sameyn lahaana waxaan ka codsanayaa in ay dirta koonfureed iyo dadka ay quseyso ay ka arrinsadaan sidoo kale waxaan halkan aan baaq ugu jeedinayaa oo maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug qorqoor yacni horaa loo yiri fulaxantiis ma mooga haddii aan moog tahayna waan ku xasuusinayaa dadka aad matasho ee Galmudug ku nool waxay tuhum ka qabaan ayba qaarkood bay tuhumba maahan aamineenba inaad xukuumadda aad ka tirsan tahay ama agaasimayaasha xukuumadda aad tahay ama yacni adigu howl aan hawshaada ahayn ayaa faraha kula jirtaa waa sida ay qabaan dadka Galmudug weliba anigu aan yacni aan ka mid ahay waana nasiib xumo inteeda la eg in maamulkii dhammaa ee Galmudug ay lagu ogaa aad sidaan u dayacay waa waxaan laga murmi karin waxaa ah maanta inay qolyihii nabaddiidka
shalay intay haysteen maana labada saddexda maanta ay haystaan ooba galmudug guud ahaanba ay la wareegeen 9%. nabad darrada ka jirta iyo cadaalad darrada ka jirtana waa waxayna isku sheegeyn oo ka hadal lahayn oo tusaalena ay kugu filan tahay kursigani reerkan ka maqan ee tan iyo maalinta adigu timid ka maqnaa ee intaas aad meermeerinaysa haddana aan rajo laga lahayn. marka sidaa aawadeed waxaan kugu soo jeedin lahaa xilkii ummaddii galmudug aada u haysay 100% waad ku fashilantay ee shaarkaa ka caddayso. hadday ay ahayn maamulkii oo lagu dhiibtay meel ku sheeg oo bal inta waktigaaga ka harsan sidii aad wax u hagaajin lahayd falankeed gal. taasna waa baaq aan usoo jeedinayo maamul goboleedkaasi. waxaan kaloo halkaan aan baaq usoo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ee nabadda iyo dowladnimada jecel. runtii shirka hadda noo socdaahi allah ka dhigo horta shirkii ay dowlad nadiifa noogu soo bixi lahayd, laakiin qaabka hadda ay ku socdaan ina iska rajeyna ma ahayn qaab hadda dowlad cadaalada oo nadiif ay ku imaan karta ma ah. waxaan marka aan ummadda soomaaliyeed intooda wax garata aqoon-yahanada culummada cuqaasha aan usoo jeedin lahaa in talooyin lagu darsado oo raggan hadda fadhiya ee maamul goboleedyada iyo xukuumadda intaba lala taliyo laguna la taliyo inay arrinta waasiciyaan oo inclusive ka dhigaan. sababtoo ah maamul goboleedyada ragga ka socdaay rag khayr badan oo adigu madax oo sharaf leh waa yihiin, laakiin qaabka ay wax u maareynayaan iyo qaabka ay wax u wajahayaan qaarkood ma salaysna wax Soomaali anfacaysana ma ah. marka sidaa aawadeed waxaan usoo jeedin lahaa in ummadani ay loo wada istaago inta yara heesano sidii aynu baaqi noogu ahaan lahayd, isla markaasna aynan khaladaadkii shalay naga dhacdhacayay ee wax noogu socon waayeyna aan dib loogu laabo oo dadka loo xaq sooro oo dadka laga talageliyo basiirkooda oo weliba xataa markii aan inaa adigu si guud horta looga talageliyo si gaar ahaaneedna madaxda iyo musharaxiinta iyo cuqaasha iyo arrinta hoos loo daadajiyo si ay dowlad loo dhan yahay oo nadiif ah oo aan ka maran ku danaysasho iyo qaab kooxaysi. calaa kulli xaalin tala loo wada dhan yahay iyo waxaa noogu dhismi karaan taladaa in la qaato laguna la taliyo madaxda hadda hawsha noo haysa. waxaan markaa intaa dabadeed aan baaq usoo jeedin lahaa beelweynta direed. dir runtii xaq badana ka maqan, xaqaasi ka maqanna waa wax ay ayaga ay iska maqnaysiiyeen runtii oo qayb ka ah xaqa ka maqan waxaa qayb ka ah xaq darrada ee iyaga ee raalli ah ku noqdeen, gaar ahaan ragga siyaasadda noo matala. kuwa hadda markaa siyaasadda ku jira iyo kuwa siyaasadda damac uga jiraba ay soo geli doonaba waxaa ogaataan in la gaaray xilligii wada xisaabtanka lagana gudbi doono in reerka loo magacaabo. sababta annaga horta markii aan xaqiiqa realitiga ka hadalno waxaa isha aan leenahay noo yeelay ninna loo magacaabayo oo siyaasi kale horaareed u wato. maanta waxaan rajeynayaa gacantana ku haynaa in taas laga gudbo. waxaan kaloo baaqaasi aan ayada weliba aan si gooniya aan baaq ugu diri madaxda hadda shirsan maamul goboleedyada iyo xukuumadda ka kooban. runtii maamul goboleedyada hadda fadhiya maamulka
iskii u madax banaan ee somaliland kuma jiro, laakiin waxaa jira rag somalilander ah oo aaminsan midnimada iyo soomaalinimada. raggaas waxay xaq u leeyihiin maamulka jubbaland, maamulka galmudug, maamulka hirshabelle, maamulka puntland. waa nasiib xumo in mar walba oo doodu taagnaato xildhibaanadiina waa laidin magacaabaya iyo nolooma magacaabi karo iyo wax lamid ah. waa ayaan daro, waa cadaalad daro, waa wax soomaali isha ay leedahay maanta u yeelay ay 30 sano ku dhawaad ay dowlad la-aanta u tahay. waxaan marka si gooniya aan ugu baaqi madaxda hadda fadhida in maamulkaasi ragga ka socdaay loo madax banaaneeyo, loo ogolaado, welibana looga dambeeyo guddoomiyaha aqalka sare oo guddoominahaya maamul goboleedyada oo dhanba. asagii markay in inta la xaqiro oo liiska musharaxiinta iyo halkaa la raaciyo iyo anteeda kalaan shiraynaa iyo oo yacni waa arrin guracan oo runtii ah hal uu dheelminahayo nin guran. marka insha allahu ilaahay hana solansiiyo wixii ay ku jirto wanaagga.